تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هيك تبارك إنجنير هذا مستقبل كبر علمي كمبيوتر جوب كستا يا جور كستود إنترنت كهلي كرتو أضو بوقنايا دب هربد.com وما أدراك هربد ومدل وحبرشو أما ليرنينج بلاتفورم واي oo lagu barto cilmiga IT-ga iyo luqadda Englishka ee lagu barayo afka Soomaaliga. Mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhawaada waa qaybtii 36 ee barnaamijkeena TT wama adraaka TT waa tixanaha tiknoolajiyada ee aan wax badan ku soo guda jirnay. barnaamijkan waxaan ku falanqeynaa wax walba oo la xiriira tiknoolajiyada. qaybtiisan 36 maanta waxaan ku baran doonaa farqiga u dhaxeeya internetka iyo www World Wide Web. ku darso kaydkaaga cilmiga libaax ama libaaxad maxaa u dhaxeeya internetka iyo World Wide Web. ma ogtahay daawade in dad badan ay ku yihiin kuwa ku dawaqmay farqiga u dhaxeeya internetka iyo www ama World Wide Web. aan ku bayaamiya taaye maanta aan ku baran doonaa qaybaha dambe qaybtaane farqiga u dhaxeeya internetka iyo www waa internetku waa shabakadii isku xiraysay dunidoo dhan ayadoo isticmaalaysa agabyadii aaladda tiknoolajiyada sida routeradii, switchyadii, serveradii iyo satellite-yadii kulligooda isku wada xiran oo dunidii la isku dhafoo la isku xiray ama fiila la isku xiray oo soo maraysa badweynta dunida ama waxa la isku xiray frequency oo maraysa satellite. tay doontaba ha noqotee waa isku xirka dunida internetku. website-kuna ama World Wide Web-kuna waa meeshii wax lagu kaydsanaya waa filing system ama waa qasanada lagu kaydiyo faylasha. waxaad fahmi kartaa raba inaan kugu fahamsiiye. waa meeshii lagu kaydinayay xogagta, waa meeshii lagu kaydinayay agabka la iibinayo, waa meeshii lagu kaydinayay waxa la soo gudbinayo, waa meeshii lagu kaydinayay tixanaha tiknoolajiyada oo hadda daawanayso. farqiga u dhaxeeya internetka iyo World Wide Web ee ah website-yada la booqanayo ayaa waxay tahay internetku waa shabaq caaro isku xiran oo dunidoo dhan fiilooyin kaba soo qaad. haddaad dalka Soomaaliya joogto waxaa jira fiilooyin koronto ee xaafad walba ku baahsan. shirkadaas waxaa laga yaabaa inay leedahay matooro kala duwan. matoorka xaafadaas ka shaqeeya korontadiisa fiilooyina loogu gudbiyaa xaafadoo dhan. waa ila garata intaas oo maaha. shirkadu waxay yeelan kartaa matooro waaweyn oo kala duwan. matoorada xaafad kale ku yaala fiila lagu la xiriiri kara matoorkaas kale haday yihiin digitally connected si loo fiiriyo inta waado la isticmaalay korontada. haddaan taa ka soo tagno haddii aad u fiirsato shirkadaha telefoonada bixiya waxay isticmaalaan waa internet ama waa network ay isticmaalaan isku xiran. networkaas wuxuu noqon karaa mid dibadda ah oo internet oo WAN ah ama wuxuu noqon karaa mid local ah ee gudaha ah. marka waxay isticmaalaan qaarkood ateenooyin waad aragtaan u maleynaa taalayaasha shirkadaha internetka bixiya ee dunidoo dhan. wadankeena hooyo Soomaaliya ama deegaamada Soomaalidu degto dhan dawladday rabaan ba ha noqdaane waxa waaye waxay isticmaalaan frequency oo satellite ah ayagoo isticmaalaya markaas ateenooyin ku xiran taalayaal dhaadheer oo ilaa 100 mitir ka qaadan dhulka. marka dunida hormartana ayaduba way isticmaalaan balse taalooyinkaas qaawanoo foolxumada badan way qariyaan. waxay ku dul qariyaan fooqaqa dhaadheer ama dabaqyaday dhisaan ayay dusha ka saaraan ateenadii xaafadda u keeni lahayd signalka cellularka ama signalka telefoonka ama khadka telefoonka ayagoo markaa isticmaalaya 3G 2G waa laga tagaa waa hore 3G ama 4G oo hadda loo guurayo 5G wama adraaka 5G. tiknoolajiyada maalin walba waa hormaraysaa balse haddaan internetka intaa ku koobo World Wide Web-kuna waa faylkii la dhex gashanayay. waxaan aad u rajaynayaa mudane ama marwo wax badan oo ku anfaca inaad maanta kala tagi doonto. marka waa maxay the internet? internetku waa network isku xiran heer caalami. networkyadu waxay u qaybsamaan dhowr nooc. waxaad maqlaysaa LAN ee ah local area network, waxaad maqlaysaa WAN wide area network, waxaad maqlaysaa MAN metropolitan area network, massive global network waxa waaye waa heer caalami network isku xiran kaasoo laga abuuray isku xirka in ka badan dhowr bilyan ee qalab. device marka lagu leeyahay waxa noqon kara qalab walba ee network port leh ama ha noqdo network portigaasu mid fiilo ku shaqeynayo RJ45 ama fiber optic ay galayso iyo cable-ka satellite-ka loo yaqaano RG6 iyo RG58 oo kale ama ha noqdo device-kaasu
network kaarkiisu mid ku shaqaynaya frequency ee ah wirelesska sida 802.11 oo kale iyo furuucdiisa kale sida ABN iyo AX iyo wixii lamid ah device-yadaasoo la iskugu xiray fiile ahaan ama frequency intaa ii qaba libaax ama libaaxad ayaa waxay keeneen in heer caalami ay iskugu xirmaan dunidu erayga internet wuxuu qeexayaa hardware deviceska ama qalabka hardware-ka hardware waxa la yidhaha wax walboo la taaban karo mobilkaygan hadda waa hardware sameecadahaygan waa hardware wax walbood arki karto taaban karto dareemi karto markaad taabato ama korontaha ku shaqeeyaan ama yay ku shaqeyne ayaa hardware la yidhaha balse marka laga hadlaya dhanka tiknolojiyadda hardware waxaa laga wadaa qalab daarmayo koronto ku shaqeeyo motherboard iyo chip iyo memory wata intaana ii qabo hardware device-kaas iyo awoodda ay leeyihiin inay ku xirmaan agab kale kuwaasoo loogu talagalay inay kala badashaan ama ay isweydaarsadaan data wama adraaka data haddaan kuu bayaamiyo wax walboo la gashto kombiyuutarka ayaa loo yaqaanaa data waxaa noqon kara hal xarafood ku qortay word waxaa noqon kara xisaabaad ku dejisay excel waxaa noqon kara presentationaad ku soo bandhigtay powerpoint sida midka hadda daawanaysoo kale ilaahay amarkiis libaax waxay noqon kartaa videogan aad hadda youtube-ka ka daawanayso waa data la soo dhigay youtube-ka data waxaa noqon kara wax walba ee aaladda kombiyuutarka la gashto intaana ii qabo sanadkan aan ku jirno 2021 sanadkan aan ku guda jirno ee ah 2021 waxaa la saadaaliyey ama waxaa la qiyaasay in ka badan 50% ee caalamka dadka ku nool ka mid ah inay yihiin online taasoo u dhigmata 3.5 bilyan in ka badan inay online yihiin ay internetka iyo world wide web ay isticmaalayaan libaax iga dhacayaarta marka dunida caalamka dadka ku nool hadda wuxuu marayaa 7.8 bilyan haddaadan lambarkaas aadan igu waafaqsaneed oo tiraa libaax waa kaa fikir duwanaha hana igu foorarin waan soo fiirinayaaye fadlan google waxaad ku qortaa world population asagaa kuu sheegaye 8 bilyan aa laga yaabaa inuu ku dhaho xataa oo hadda maraya maxaa yeelay sanad walba dunida waxaa ku darsanta intaasoo milyana ku darsanta dad ah okay marka hadduu ku yidhahda 7.8 bilyan ama 8 bilyan isku soo duuduubo in ka badan 3.5 bilyan dad ah ayaa internetka ku jira aduguba hadda dadkaasaad ka mid tahay 3.5ka libaax ama libaaxad iga dhacayaartaniyow ama qof yahay waxaa jira dad isticmaalaya internetka ee ku nool waddan walbee dunidan ka mid ah iyo qaarad walbee dunidan ka mid ah waxa keliyaho marka la dhihi karaa internetku waa mid baaxaddiisu sii weynaanayso xawaarihiisuna ou sare u sii kacayo dib loo laaban mayo internetku wuxuu sahlay waxyaabo badan dhibkiisana waa wataa faa'iidadiisana waa wataa sida fiican haddii loo isticmaalo wax badanaa lagu qaban karaa sida xun haddii loo isticmaalo dhibaatooyin badanaa lagu geysan karaa libaax haddii aan taariikhda dib u mulicsanno taariikhdu waa maguurte maskaxdii fiyowba ka macaashta waayaha ayuu yidhi abwaanguure ilaahay amarkiis haddaan taariikhda dib u xasuusanno ee aan fiirino taariikhdii ou soo maray internetka iyo goortou soo bilowday internetku wuxuu ka soo bilowday waddanka america wama adraaka america united states of america waa gobollada midoobay ee america loo yaqaano okay waa waddanka kaadidiisa caba ee dunidoo dhan ku haya qofkii iswaala cunaqabatayn waxaan saarayaa dhaqaale cunaqabatayn fikrad cunaqabatayn waxbarasho cunaqabatayn wax walba ha noqoto marka waa waddanka kaadidiisa caba ee adduunkao dhan baabahada ka dhiga war maraykanow haddaa af soomaaliya ku hasho ifiirsanayso waa idin baryaa waa fikirkayga kuumana fooraree fadlan ha isku foorarin ilaahay amarkiis okay taariikhdu markay ahayd 1969kii waa dabayaaqadii lixdameeyadii ayaa waxaa soo bidhaamay shirkad la yidhaahdo Advanced Research Projects Agency Network ee loo soo gaabiyo Arpanet 69kii waxay isku xirtay 4 jaamacadood ee ku taalay xeebta galbeed ee waddanka America West Coast waa xeebta galbeed ee waddanka America waxaa jira East Coast ee ah xeebta bari ee waddanka America Soomaaliya xeebteeda bari ama East Coast waa xaafuun iyo boosaaso iyo halkaa iyo caluula ilaahay amarkiis xeebta galbeed oo Soomaaliyana waxa waaye waa Raskamboni ilaa Kismaayo ilaa iyo halkaa aad waa galbeed jihada iyo geography-ga yana kugu wareerin libaaxe taas waa ka dhisan tahay ayaa waxaa dhacday
xeeb galbeedka America 4 jaamacadood oo ku taalay ayaa telefoonadii ay isticmaalayeen la iskugu xiray markaana internet loo dhex marshay telefoonadaas la isku xirayo waxa iska lahaa jiray shirkad la yiraahdo Bell Labs ee shirkadda u haysata America oo ku haysatay Monopoly sandulle ku haysata sandulle ay waxay ku haysatay adeega telefoonada looga hadlo guryaha iyo jaamacadaha iyo ganacsiyada ee ku yaalay wadanka America kontameeyadii ilaa 60meeyadii hadda xasuusto telefoonkii qarraac inta la siiyo qarraac wareegay awowga haduu isticmaali jiray libax awowga ama ayida waa legend ama libaxad iga dacayrta okay markii la soo gaaray dabayaaqadii sameeyadii ayaa jaamacado badan iyo shirkado gaar loo leeyahay ayaa ku soo biiray telefoonadii isku xirnaa oo nadwaga ahay marka Arpanet waxay baaxadiisa badisay ama waxay ku faaftay wadanka America dhamaantiis laga bilaabo bari ilaa iyo galbeed ama galbeed ilaa bari East Coast iyo West Coast East Coast waa New York iyo meelahaas ku yaala West Coastna waxa ku yaala California iyo Los Angeles iyo iga dacayrta America taariikhdeeda waxa la igu soo dhigay high school aan ku soo dhigtay magaalada la yiraahdo Columbus Ohio yaana kula gelin halkaas waa diraka America aad u baahtitii saaxiibayaal markuu dhacay weerarkii 2001 ee labadii mataanaha ahay ee ku yaala New York diyaaradda lagu dhufanayay waxaan dhiganayay class-aan ku jiray oo fasal anoo ku jira ayaa dhibaatadaas u dhacday rumayso ama rumaysan libaax markii la soo gaaray oo lagu gudo jiray sagaashameeyadii ayaa waxaa bilowday in dad ay isticmaalaan internetka ay ku xirmaan taasoo keentay in internetku uu noqdo mid loo isticmaalo qaab ganacsi in dadka wax looga iibiyo shirkadihii ugu horeeyo internetka wax ku iibiyana waxa kamid ah shirkadda hadda adduunka ugu haysata adeega macaamiisha iyo agab walba laga heli karo ee magacooda la yiraahdo Amazon oo bilaabay nin la yiraahdo Jeff Bezos wuxuu leeyahay shirkadda la yiraahdo Amazon ee dunida wax walba yaala ka ganacsata ilaahay amarkiis taariikhdii waa soo aragnay marka maanta internetku sidoo u ogyahay what does it look like internetka maanta jiraahi internetka maanta jiraahi waa mid haddii aan wax yar ka taabano waxa la dhihi karaa waa mid la taaba karo ee sida dhagaxa aad u taaba karto ama shamiitadoo kale waa mid aad taaba karto aadna dareemi karto aadna arki karto kaasoo internet kaasoo ka kooban qalab la isku xiray sida computer oo ah computerkaaga haddii aad ka daawanayso cashirkan computerkaaguba internetku ku xiran yahay smartphone haddaad mobilkaaga ka daawanayso cashirkan ama qaybtan 36 waa ku jirtaa waxay ka mid tahay smartphone-kaaga waa qalab ka mid ah qalabka internetka lagu ogaado maxaa yeelay dataad ku gudbidaa mana is ogid iyo waxa waaye meelaha lagu kaydiyay datada la isla wadaagayo datadaas waxa lagu kaydi karaa cloud computing centers cloud computing hadda ka horaan uga soo hadlay qayb kamida TT waxa waaye waa qalab yaala meel adiga ka fogo internetka ah aad adoo internetka isticmaalaya qalabkaas adeegyada uu bixiyo ama shirkadaas adeegyada bixiso oo compute power ka ah adoo adeegsanaya wax u qaybsamaa dhowr nuuc software as a service platform as a service anything as a service marka wax walba ayaad adeeg ahaan u kireysan kartaa ama u gada kartaa cloud computingka shirkadaha ugu haysta ee gaashaanbuurta cloudka waa 3 shirkadood waa Google waa Amazon iyo waxa waaye iyo Microsoft waxa ugu haysta shirkadda la yiraahdo Amazon oo runtii shirkadda ugu aansan maadaama ay ugu soo horeeyay cloud computingka marka waxay haysataa first mover advantage wax loo yaqaano ganacsiga xaqiisa iga dacayrta libax cloud computingka waxa ugu soo horeeyay Amazon internetku wuxuu kala isku xiran yahay taalooyin dhaadheer ama tawaro taagan cell towers waa ateenooyinka Soomaaliya ee telefoonada communicationka iyo internetka lagu gudbiyo waa kuwa garabkaygan ka muuqda haddaad rabto inaad aragto say ogyihiin oo Soomaaliya aadan ayaantan tagin ama dunidaba sidaan oo kale ayay ogyihiin balse waa saan ku soo sheego fooqaqa iyo dabaqyada iyo meelaha qurqurxoon ayaa lagu qariyaa geedaha dhexdooda iyo dadka lama tuso si bilicda magaalada loo ilaaliyo iyo waxa kale oo kamid ah home routers ee ah qalabka internetka lagu bixiyo ee guryaha la keeno sida shirkadaha loo yaqaano ISP ee ah internet service providers waxay guryaha u keenaan customerkooda ama macaamiishooda router ka kooban switch modem iyo router isku ah ee loo soo gaabiyo router marka laga hadlayo ama waxa internetka lagu keeni karaa communication satellites ee ah
qalabkii satellite-ka ahay ee dayax gacmeedka ahay ee dunidoo dhan ku wada xiriiraysay ayaa lagugu soo gudbi karaa adoo diish isticmaalaya inta satellite-ka arko frequency receiver iyo sender ayay noqonayaane ayaa markaa lagugu soo gudbinaya internetka waa sidii Soomaaliya isticmaali jirtay dhowr iyo 10 sano ka hor internetkaas wuxuu noqon karaa mid lagugu soo gudbiyey telefoonka landline-ka ee guriga kugu jira ama wuxuu noqon karaa mid lagugu soo gudbiyey fiber optic cable ee la soo dhexmarsiiyey badweynta ama la soo dhexmarsiiyey dhulka hoostiisa ee ilaa gurigaaga central xaafad walba waxay leedahay dunida hormartay fi Europa iyo duwal mutaqaddima hadda dhankaas Carabiga ay taa Brazil u laabto dunida hormartay Europe iyo America hadaan dhahno waxa jira xaafad walba waxay leedahay exchange meel ah oo dabaq weyn ah exchange-gaas waxa yaala fiber optic fiiladiina waxa la soo dhexmarsiiyey dhulka hoostiisa dunida hormartay fiilooyin lama mariyo taalayaal inta la taago fiiladaasano cirka maraysa lama ogola ilaahay markiis fiilada dhulka la soo hormarinaya dhulka ayay ku jirtaa dabaqaaga ayay dhulka soo galaysaa guryaha waxay ku timaadaa darbiyada guryaha ayay soo gashaa ayadoo fiber optic ama ayadoo telephone cable ah okay ama ayadoo fiilo telefoon ah marka qalabkaas oo la isku xiray ayaa waxay sameeyaan internetka marka waxa isku xirma waa agabkan qalabyadaas iyo meelahaas aan sheego ah data centerska iyo satellite-yada iyo ateenooyinka oo la isku duubay ayaa internetku ka kooban yahay marka tusaale kale internetka wuxuu noqon karaa taalooyinka telefoonada in ateena inta lagu xiro internetka loogu baahiyo ayadoo 4G ama 5G la isticmaalayo ama wuxuu noqon karaa landline-ka guryaha la keeno ayadoo lagu soo marinayo router ama wuxuu noqon karaa data internetka ku jirta haddaad rabto inaad hesho cloud computing center inaad ka dhex hesho adiguna aad isticmaasho shaashada laptopkaaga ama computerkaaga ama mobilkaaga inta meel fadhiisato aad dhahdo www.hurbad.com wama adraaka hurbad hadaa i weydiido waa madal waxbarasho ee laga barto luqadda afka qalaado ingiriiska iyo IT-ga qaybihiisa kala duwan libax ama waxa lagu soo gudbi karaa wireless connection ee satellite iyo dish ayadoo la isticmaalayo marka intaasoo si ayuu ku yimaada internetka adiguna maskiinkan waxa tahay mobilka isticmaalayo meesha socda 5G ama 4G telefoonada wadata ee ateenadan ku dhacaya signalka hadaad ka fogaatana marmar xaraaradda ama receptionka ama khadku waa ka tagaya waxaan rajaynayaa inaad fahamtay sida internetka oo u egyahay aan fiirina marka internetka sida u egyahay oo isku xirmo waa aragnay balse maanta internetka the internet today waa maxay internetka maanta la isticmaalo waa maxay qaaradii dunidoo dhan waa tan ayadoo qaarad walba computer oo yaalo fiilooyin loo yaqaano fiber optic ee iskaga gooshaya internetka dhexdiisa ayaa meel walba Atlantiga Indian Ocean ama Pacific oo dhankan kaaxiga isku kala gooshinaya internetka ayagoo markaa fiber optic la dhex marinaya badda hoosteeda markabyadu hadday jaraanna markab sameeyaa jiro badweynta dhex taaganba oo ka ilaalinaya inaa markab oo jaro marmar waa dhacdaa markabku inta jaro loo baahdo in la habeeyo ama waxay noqon kartaa kuwa la isku dhex mariyay connectionkaas satellite-tan soo sheegay marka internetka maanta soo u egyahay marka mudane ama marwo hadafka ay lahayd Arpanet wuxuu ahay in ay hormariso wada xiriirka hadda marka agab badan oo la sii badiyoon xad dhaafoon xad lahayn ayaa isku xiran oo internetku ka kooban yahay marka taasi waxay keentay in la helo wada xiriir fartaada adoo san ka siiyo kale wada xiriir degdeg adoo helo kale waxayna taasu keentay in qof walba qofka kale oo la hadli karo meel alaala meeshuu joogo iyo meel walba ku sugan yahay qofkaasi ha noqdo qof dariskaaga ah ama ha noqdo qof badweyn idin dhaxayso sida adoo jooga badweynta Hindiya ayaad waxaad wici kartaa qof ay idin dhaxayso laba badweyn sida badweynta Hindiya iyo badweynta Atlantic oo kale ayaad wici kartaa qaarad kale oo dunida kamida ku nool xog kasto ku salaysan adduunyada wax walba jiro la barto ama xog walba ee laga hadlayo ama wax walba ama topic walba oo rabto inaad ka hadasho xog ku saabsan ayaad internetka ka helaysaa si sidaan ah oo dhaqsi ah ayaad ku helaysaa masawiro iyo muuqaalo maqal iyo muuqaal ah waxay si sahal u yihiin kuwa la isla wadaagi karo ama aad la wadaagi karto saaxiibada marka muuqaalkan aniga hadda waxaan kugu la wadaagay madasha YouTube-ka ee YouTube platform ayaan kugu la wadaagay saad u daawato waa Jimcaale waa TT wama adraaka TT marka aan soo koobno weedhaane internetku wuxuu bedelay sida dadku ay iskula xiriiraan sida dadku u wada shaqeeyaan sida dadku wax u bartaan oo ah e-learningku ay number 1 ka tahay
dunidu waxay soo martay distance learning ee ah iyadoo la isticmaalayo isgaarsiinta boostada in dadka ka fog adeegyada waxbarasho ama goobaha waxbarasho in loo diro warqadihii buugaagtii ayada lagu ridayo bashqado iyo kartoomo loogu diro adeega isgaarsiinta boostada inta loo geeyo dadka ka fog goobihii waxbarashada ayay waxaa loo samay jiray distance learning ayadoo markaa boostada loogu dirayo dunidu taas waqti badan ay ku soo shaqaynayday hadda dunidu maxay mareen mataqaan libaax ama libaaxad waxay mareen e-learning electronic learning waa sida hurbad oo hadda u shaqeeyo adoo gurigaaga jooga adoo jooga geyigaaga shaqada adoo jooga meel walba adoo gaadiid saaran adoo diyaarad saaran adoo saaxiibkaa la sheekaysanaya adoo meel walba jooga ayaad goob kasta iyo goor kastood internet heli karto ayaad wax baran kartaa balse taasi waa mid ku xiran self disciplinekaaga iyo sida aad nafta uga adag tahay annafsu ka tifli waaye naftu waa carruuroo kale ma ka adag tahay inta meel iska saarta nafta wax ma bari kartaa naftu waxay jeceshahay waxyaabaha lahwiga iyo lacibka iyo waxyaabaha qosolkaa iyo waxyaabaha fududay jeceshahay wax walba waa kugu adag yihiin intaysan kuu fududaan ka gadaal markaa baratay kadib marka wixii markaa barato lagugu soo celiyo waa ku halaaqoonaysaa markay kugu cusub yihiinna dhagaha taagay sida bakaylihii oo kale ku soo celi xamaasad iyo waxaa ku hayda inaad wixii barato carcartana kugu jira iyo rag meel iska saaris iyo dumar meel iska saaris naag iska dhig ama nin iska dhig libaax iga dacayaarte iyo waxau kaloo sahlay internetku in dadku ka soo adeegtaan internetka adoo gurigaaga fadhiya ayaa dab amazon.com inta tagto ayaad shayga rabto inta doorato midabkiisa iyo muuqaalkiisa inta qayb uu yahay ayaa waxa leedahay bam ku dar salada adeega dhac ba credit cardka gali order delivery goorma la soo diraa waxa la soo diraa maalin heblaayo bam 24 hours 48 hours kadib gurigaaga ilida gow waxa ku soo garaac ninkii boostada wuxuu ku yiri alaabtii aad ka dalbatay internetka waa kana iga dacayrta libaax waa delivery waa 21 century aduguna waxaad ku haydaa warniyahu tukaanku xagow ku yaala haddaanan iska tijaabin marada oonan dareemin say u ag tahay aanan arkin oon la ii daarin waxaan iibsanaya ma leh ilaahay amarkiis brick and mortar mataqaan libaax brick and mortar waxaa la yidhahdaa waa tukaamada ku yaala wadooyinka dunidu waa ka tagta brick and mortar waxaa loo wareegay hurbad.com iyo google.com amazon.com ganacsi aan lahayn website waa ganacsi aan hormarsanayn sida website-ka loo dhiso baro dunida ganacsi walba wuxuu rabaa inuu website samaystay libaax ama libaaxad intaasna qisha ku noqoto the world wide web www markaa maqasho waxay ka timid world wide web dunida oo ah wall caalamkii wide oo wax baaxad weyn oo ballaarana loo yaqaana wide web waa shabaq marka shabaqii ballaarnaayoo dunida isku xirayay ayay noqonay haddii af Soomaali laga dhigo marka world wide web wuxuu la mid yahay heer caalami nidaam lagu kaydiyo faylasha ama malafyada kaasoo ku dhex shaqeeya internetka marka waxaan ku soo iri internetku waa isku xirkii website-kuna waa meeshii wax lagu kaydinayay wax walbo la geliyo nidaamkan file systemka ah waxaa loo yaqaanaa website marka waxaad gadatay ama waxaad kireysatay website ciwaankiisu yahay libaax.com libaax.com ama libaaxad.com oo dhadig ah haddii aad iibsatay ood ama kireysatay oo libaax.com yahay waxuu ka mid yahay meel lagu kaydiyo faylasha ama daytada internetka ku jirta wax walbo internetka ku jirta waxaa lagu helaa ayadoo la adeegsanayo www. world wide web waa website-yo website-kaas marka sidee loo dhisay muxuu ka kooban yahay haddaad rabto inaad barato si sahla oo weliba kaaga baahnayn programming inaad taqaano waxay ku jirtaa website-ka hurbad koorsadan iska diiwaangeli libaax aad bay ku anfacaysaaye ama libaaxad waa koorsaad ku baranayso si fudud sida loo dhiso website-yada marka website-ku wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo dhowr bog ee ka mid ah webka marka web pages waa dhowr bog oo ka mid ah meel walbood ku dhufato website-yada bog kalaa lagu geynayaa marka bog walba wuxuu ka kooban yahay code la qoray ee ah luqadii lagu qoray iyo qoraalladii lagu qoray iyo multimedia fileskii oo ka koobnaa multimedia waxaa loo yaqaanaa waa masawirada iyo fiidiyoyaasha ayaa loo yaqaanaa iyo codka oo la isku duubay ayaa loo yaqaanaa multimedia waa multi waa wax badan mediana waa habgudbin
hadgudbintu waxay noqon kartaa mid maqal ah, waxay noqon kartaa mid muuqaal ah, waxay noqon kartaa mid qoraal ah. marka multimedia waxay noqon kartaa multimedia mid cod ah, dhawaaq ah iyo arag kali oo sawir ah. marka webku wuxuu ka kooban yahay wax la yiraahdo hyperlinks. waa wada xiriir gaar ah ee ka dhaxeeya bogaggaas. bog walba bog ayuu xiriir la leeyahay, sida xididka caaracaarada xuub walbo ka mid ah oo xiriir la leeyahay xuub walba. waxayna ka caawinaysaa qofka isticmaalaha ah ee userka inuu dhex goosho World Wide Webka. World Wide Web waa isla garanay, waa bogog isku xiran ka kooban code la qoro programming ah iyo qoraalkii ku qornaa iyo fiidiyoyo iyo codad iyo picture la isku duubay ayaa loo yaqaanaa bogogga web page-ka. bogoggaas waxa isku xira waxa loo yaqaanaa hyperlink. hyperlinkigaas oo u shaqeeya sida shabaq caaracaaro kale. taariikhdu waa maguurtee, maskaxdii fiyowbaa ka macaashta waayahe taariikhda uu soo maray World Wide Webka. balaan isla fiirino. faylasha lagu kaydiyo website-yada waxay u kaydsan yihiin sida geedkiyo kale. geedku wuxuu leeyahay sal, wuxuu leeyahay laan, laanta waxa ka farcama laan kale, laanta waxa ka sii farcama laaman, laankan laaman kale, marka waa tree structure loo yaqaana. sida geedkiyo kale ayay isku hoos imaadaan faylasha. waa sida computerka faylashiisu isku hoos yimaadaan oo kale folder systemka ama database-ka. okay, hal folder baa la abuurayaa oo salkii ah, kuwa kale laga sii dhex abuurayaa. folderadaas marka waxaa ku dhex jira dukumentiyo. dukumentiyadaasoo xiriir ka dhaxeeya ah hyperlink ee ah erey ka mida dukumentiga ayaa waxaa la leeyahay ereygaas haddaad ku dhufato waxaad tegaysaa bog kale oo web page kale ku geynayaa. marka taariikhda dib u laabane, markii internetku uu koray ayaa waxaa dhib noqotay in la helo xog la isku halay karo oo si fududna lagu heli karo. marka daytada waxaa loo kaydiyaa sida geed is hoos imaanayo karo laamankiisu sii farcamayaan. marka taas waxa waaye waa sida kombiyuutarka shakhsiyeed ee loo yaqaano PC ama personal computer lagu kaydiyo xogta. dabayaaqadii 80meeyadii marka ayaa engineer u dhashay waddanka Ingiriiska oo magaciisa loo yaqaano Tim Berners-Lee ee ah ninka halkan kaaga muuqda ayaa wuxuu la soo shir tagay. wuxuu leeyahay halkan niman yahow geedkan is hoos imaanaya faylasha ku jira xaraf ka mida intaan wax ku qoro aan la xiriiriyo meel kale oo markii lagu dhufto ku geynaysa hyperlink kale. marka hyperlink waxa waaye qoraal qoran ee lala xiriiriyay haddii lagu dhufto asaga meel kale ku geynaya ama bog kale ku geynaya. taasi waxay keentay in xog la helo ay sahal noqoto. qofka isticmaalaya kombiyuutarkana ay sahal u noqoto inuu marba meel u boodo ee markaad ku dhufato webka meel ka mida oo kuu bootinayo meel kale waa aragtaan u malaynaya oo dukumentigii iyo qoraalkii ku jiray markaa qoraal kale ay dukumenti kale aad aadayso. meeshii intaad dib u laabato aad markaas aad folderro badan ee ka mid ah website-ka ama kombiyuutarka aad midba mar aad booqa lahayd. marka Tim Berners-Lee ee loo soo gaabiyo magaciisa TBL, ninkan TBL aad iyo aad ayuu u dadaalay, fikirkaasoo curiyey kaligiisna maaha tiimkiisii ka shaqaynaya jaamacad ka mida jaamacadaha Ingiriiska ku taalla ayay project ahaan u alifeen. dad badanaa sii qaada fikirkiisii si fiican wax u sii curiyey. asagaa wax alifay balse dad badanaa waxay ku dareen qaabo badan, nuucyo badan, farshanno badan. markaas kadib aad iyo aad loo qurxiyey. waxaa meeshaa ka dhex urtay luqad loo yaqaano HTML, Hypertext Markup Language, oo ka mid yahay dadkii soo alifay luqaddaas. waa noo imaan doontaa, waa cashir ka mida TT ee noo imaan doona. waa soo garanay taariikhdii webka. marka what does it look like? muxuu u eg yahay website-ku? website-ku wuxuu u eg yahay sida magaca ka dareemayso World Wide Web. wuxuu u eg yahay waa wax isku dhafanoo isku maleegan oo runtii virtual ah oo khiyaali ah. weliga eelaha xarig inta soo qaaday cangariya ama xariga haamanka ama geela ahaanta marka la saarayo xariga haamanka lagu saaro geela ama xariga wax lagu xirxirto ama xarig uun soo qaad dabintiisa badi. dabinta xariga markay badato oo xarigii la isku dhafmo markaa dabinidiisa inta badato asaga dhan isku maleegmo oodan markaa kala furfuri karinoo wax isku dhafan yaho tiradii ka batay saasoo kalea laga wadaa waa complex tangle. waa wax isku dhafanoo dabinno badan leh laakiin waa khiyaali. web pagesku waxay noqon karaan dhibicyadaas muujeedaa meesha ay ka wada xiriiraan xarguhu ayay noqon karaan web pagesku oo hyperlink asagoo isticmaalaya kaasoo ku geynaya meel kale oo ka kooban ilaa iyo 2 page ugu yaraan. hyperlinkigu wuxuu dhex galaa page ayaa page dhex galaya markaa ku dhufata xarafkaas ka midana wuxuu ku geynayaa meel kale.
marka website-yada caanka ahi waxay noqon karaan kuwa aad iyo aad iskugu xirxiran waxay haystaan bogog badan oo loo baahan yahay bogba bogo kale inaad ka booqato haddaa u fiirsato marka website-yada hyperlinkigu wuxuu abuuraa buundo u dhaxaysa website-yada marka hyperlinkigu waa dhibcahaas xariga meesha iskaga xirmayo ayaa hyperlinkigii ah ama bogoga meesha iskaga xirmayaan webpage-yada yaryarka waxay abuuraan kuwa yaryar oo ayaka ka sii faracma cluster waxa la yidhahdaa waxa is hoos imaanaya haddaa laxoox isi saarsaarto waa cluster of laxoox ama cluster of canjeelo iga dacayaarta cluster waa wax isi saarsaaran waaye oo u baahan in si tartiiba loo kala qaado okay reer koonfurku waxay ku maahmaahaan canjeelaba say u kala koraydo loo kala qaadaa haddaad joogto waqooyiga soomaaliyana laxooxda libaax iga dacayaarta intaas adaa kuu daynaya laxooxda sida loo kala qaado ma fahmin balse waxaa jirta maahmaahya kaftana marka kaftarkii intaasaa noogu ekaado tan waa isla garanay sida uu egyahay maanta sidoo u egyahay website-yada jiraahay the world wide web today soo u egyahay marka ayaantan waxaa jira in ka badan billions of websites ku jira internetka kuwaasoo lagu kaydiyo xog haddii xogta ku jirta website-yadaas lagu kaydi lahaa cd room waxaan umaleeyaa cd room waa la socotaa waxa laga wado waa baalero saan u wareegsan oo lagu kaydi jira daytada hadda USB ayaa la socotaan u maleynaa waxa ka horreey jira floppy disk waxa dhaxla CD waxa dhaxla DVD waxa dhaxla Blu-ray waxa dhaxlay iga dacayaarta libax USB waxa dhaxla cloud computing waa la isdhaxlayaa kadaalika wa awrathna hawaay qowman aakhariina hadda halkaas ka galsho qofka waxa uu fahmi karo lagu fahamsiiyaa leeyib qowma dhaxla libax waa la isdhaxlayaa meeshaan yaa lagu dhaxlin hadda ka gaar cloud computing waxa ku kaydso marka haddii lagu kaydiyaa la yiri CD waxay gaarayaan ilaa iyo cirka bishay gaarayaan bisha xogta ku jirta website-ka tiradeeda haddii CD lagu kaydiyo la isdul saaro say u socdaan waxay gaarayaan cirka iyo bisha ayay soo booqanayaan search engine waxaa jira sida Google Yahoo Bing ay leedahay Microsoft kuwaasoo kuu sahlaya inaad hesho xogta aad doonayso adoo markaa ku qoraya website-yada inta booqato marka waxaa jira in ka badan badda biyaha ku jira xayeysiin ka badan ayaa jirta maanta iyo social mediaha waxyaabo kugu carqaladeynayo oo kugu indha sarcaadinayo iyo waxyaabo si fiican loo soo xardhayo loo soo xeeladeeyo thumbnailka ama muuqaalka hore ku soo jiidanaya artistic content waxa loo yaqaanaa waliga YouTube-ka adoo daawanaya qof ma ku qoray qaybta hore arkayso thumbnailka ama picture-ka saaran video-ga intaada ku dhufan ka hor ma ku soo jiiday markaad ku dhufatay bakhti maaragta iyo wax qashina oo markaa filayn iyo muuqaalka meesha saaran iyo waxaad ka filayday inaysa isnoqon imisa muuqaalo foolxun waxa ku jiraahu yihiin kuwa lagu qoro dahab balse imisa muuqaal qurxoon la soo dhigay xubnihii taranka qaawan ama qof dumar la soo dhigay ama wax uu markaa qalbigaaga iyo madareenkaaga lagu kicinayo laga soo hormariyay saad ugu dhufata darteed ilaahay amarkiis waxaas yaa lagugu si indha sarcaadin iska hubi marka xayeysiinta badan iyo mareegaha lagu xantamay social mediaha iyo sida xeeladaysan loo soo xardhay hal abuurka contentigu haddaan dhahno waa hal abuurkii qofka uu sameeyey ama xogtii oo meesha gashtay si loo soo helo haddaan ku salayno videogan waxaa saaran thumbnailkiisa aniga oo kiyaalo wata shaati guduudaho xardhan wata laga yaabo inuu muuqaal qurxoon uu yahay ama uusan ahayn balse waa artistic content inta anaku awoodno kamaana badbadin marka waxaas ku sahlaya ayaa waxay tahay search engine-ka adoo isticmaalaya search engine muxuu yahay hara uga soo hadlay balse waa si sahlan oo website-ka wax looga baarto website-yo badan dunida jiro bilyanise haddaad rabto xog kamida website inaad ogaato wax walba ku qoran search engine-yada ugu caanka yihiin Google haddaad isku tiraa Google gowsahan ka bixinaya libaxad Google maahan Google maahan Google way Google wama adraaka Google Google ga'dama ga fadxa laam saakin gal Google way markaas aku kaadiyo abartay rag dhalaadana ku kaadino libaxad waa Google Yahoo adigu hikaadso Bing Yahoo shirkad goonideed u jirta waaye balse waxa ka xog batay Bing oo Microsoft leedahay iyo Google oo asaga dhan dunida ugu caansan marka wax laga baaranayo internetka waa gunaanadkii qaybta 36 waxaan rajaynayaa wax badan inaad ka faa'iiday mudane iyo marwo farqiga u dhaxeeya internetka iyo world wide web fadlan haddaad ka hesho videogan smash the likes libax haddaad ka helina waa yeelkada libax waxba igama gelin iguma foorarto ilaane fadlan haddaad ka heshase falanqee fariin hoos dhig aad nagu faaninayso ama aad nagu foorarinayso labadaba waa soo dhaweynaahe haddii kalena haddaan dhaada kaaga dhigo waxaan ku leeyahay libax adoona dhaliilaya ama na dhiiro gelinaya dhambaal hoos dhig marka dhag
وكم هالعلنا لباح أما لباحد يوتيوب كنا هدادن كأهن ركنا فضلا ريح جنبلالك ريح سبسكرايبك سي واحد البول لجسور ريدو كوجسور رعليان مستقبل كدو برنامج كان وبرنامج جمعاله اللوبحيي تي متانا تي كله عصب تي waxa laga soo gaabiyay kan aad daawato jimco walba waa tixanaha tiknoolajiyada waxa jira titi kale ee loo yaqaano cusub oo qaybtiisii koowaad haddii rabto inaad daawato aad ka heli karto hoos ee aan ku sameeyno tijaabada tiknoolajiyada ama waxa loo yaqaano tech review anagu waxaan jecelnahay inaan quudanno erayga Soomaaliga maxaa yeelay haddii aan af Soomaaliga aan lagu hadlin waa dhimanaya qof waxaad arkaysaa maanta ku dhahaya waxaasan kool gareeyay waxaasan blog gareeyay waxaasan garagareeyay waradoona garka iska xiirin libaax ama libaaxad fadlan waxaad isticmaashaa luqadaada hodantida ah suugaanta macaan leh ee af Soomaaliga sidaa darteed ayaan waxaan nidhi intaan dhiilayn tech review hurbad ama hurbad tech review aan waxaan nidhi tijaabada tiknoolajiyada anoon haynaad haybi doontaa iga dacayrta libaax maasha Allah igu dar ee fadlan subscribe ka riix YouTube kana yaa laga hordaawan link inka nagala soco Facebooka fariin ugu reeb Instagramka naga indee Twitter keenana ku tixnaaw nagana soo booqo dab hurbad.com wama adraaka hurbad waa ku salaamaya waxaana kaaga tagay tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa no ani adiga iyo kulanti dambe